السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعنا ورأسنا داوديال هل كان جلسوا عطان وسحصح برودكشن ونكون سنتين داود الشدا وركنا فضلا هديات كل عصوبة هاي داوده كاين معمل إنا ترى هذه سبسكرايب جنب القناة فرتيد زي كوسو جران وركود دنبيي الصومالية إيو عالم طلبنا صاحبي الله ما أنت هو إنه وحا كم من نقطة دونا قار كم من المشارحين تهراء وجود تغنيد حل كم مدحوينها جلمذو وهم بريء مدحوينها عصوبة جلمذو حلبان عبد الرحمن أدواء وكمدها مشرحين توتاجنيد حلك مدحوينها جلمذو أيها شيء إنه سحوقنا عسنين دورشدي كده عضي عاصمة جلمذو يدوس مراب دولة الصومالية وصو صارتي وراقد عالمي أو لغو حريو وسير كأمنك تشبلان عبد الرشيد شنان بنام بحيو واوين أو لغو تاجير مدحوينها عصوبة جلمذو أوليك السعودة قار كمد الديجانة جلمذو وضبط عاصي وضبط كلا ضحصون أيها كدعوان دونتان صاحبيال فضلا هدي نقول عصوبته هاي داوده هكا المامن إنا سبسكرايب تراديد جنب القناة فرتيد si ay ku soo garaan wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka isku soo noqod wanaagsan daawadayaal qaar kamid ah musharaxiintii hore ugu taagneed xilka madaxweynaha Galmudug ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo maalmo ka hor lagu doortay caasimadda Galmudug ee Dusmareeb iyadoo khilaaf xooggan uu ka dhex jiray musharaxiinta iyo waliba madaxweynaha haatan la doortay waxayna musharaxiintan oo kala ah Kamaal Guutaale Cabdi Dheere iyo waliba Cabdullaahi Weheliye ay halkaasi hambalyo ugu direen madaxweynaha cusub ee Galmudug xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa oo hore u ahaa musharax madaxweyne Galmudug oo hore u diiday inuu ka qayb galo doorashada ka dhacaysa caasimadda Galmudug ee Dusmareeb ayaa sheegay in saaxiibadiis uusan ku raacsaneen waxa uu sheegay in madaxweynaha cusub ee Galmudug ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxayna tan imaanaysaa Cabdiraxmaan Odawaa iyo waliba saaxiibadiis oo kala ahaa Kamaal Guutaale iyo Cabdi Dheere Cabdullaahi Weheliye oo horay u diiday inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha Galmudug ayaa tan imaanaysa dowladda Soomaaliya oo soo saartay waraaqad caalami ah oo lagu xirayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdi Rashid Janan ayaa dhawaan ka baxsaday xabsi ugu xirnaa dowladda Soomaaliya kadib markii uu dhoofay Kenya maanta ayay ahayd inuu dib ugu soo laabtay gado waxayna dowladda Soomaaliya ay waraaqad caalami ah ka soo saartay xariga waxayna dowladaha ay saaxiibada yihiin ay ka cusatay in gacanta ay u soo geliyaan dowladda Soomaaliya Cabdi Rashid Janan oo dambiyo waaweyn ka galay dalka Soomaaliya banaabaxyo waaweyn ayaa wali ka socda qaar kamid ah deegaanada Galmudug kuwaas oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaana deegaanada qaarkood laga dareemayaa in maalintii labaad si weyn looga dabaaldegayo iyadoo taageero weyn loo muujinayo madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo dhawaan lagu doortay caasimadda Galmudug iyadoo khilaafyo waaweyn ay ka jiraan magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ayaa si weyn ayagu looga taageeraya waxaana maanta si weyn banaanbax aad u weyn u gilgilay magaalada Gurceel iyadoo halkaasina looga soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye guud ahaan wanaagsan inta saaxiibayaal waana ku mahadsantiin daawashada warka fadlan hadii uu ku cusub tahay ha hilmaamin inaad subscribe tirahdid si aad ula socotid wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka